وحنا مركو بيرتو بحضر بالك كو غرياي adna beer ku hayso oo shaqo wada shaqeysana aanu caleenta ma cuno adu caleenta cunaysa ana midha oo la shaqeysana de adoon imiti nin reer gabilay wuxuu yiri ya bari wuxuu ka hadlay looda markaas ay looda nugul baad yihiin baa leeyahay rag bay kaftameen markaas uu yiri waa runay annaga loodeedu waa shahaada oo muslimiin buu geel markuu ciyayo waxa la yiraahdaa olol naarun baalati olol هذا عذاب وين مركا wuxuu yiri markay bisaarada dhacdo jaflaha iyo barwaaqo heleen sanadkan hadhulku noo baxo caanaan hello aroosyada gallo caasinimo ku dhacno ayaa ilaahay roobka ka yareeyaan xilliga dambe markaas ay loodu tiraadaa way sheer baacida markaas ay tiraa rabbana markay cees marka ilaahay baa la hadla saabiir سعيبا مقلنا لاي مركز سنيدا الله ويشاير waxay sheegaysaa waa run ma garas dibigiyo meel ku xiran ayaa maqla markaas sneeda nabi ashahadi boodan tuuri la ilaaha illa muhammad rasuulullah oo nabiga rumaysay jaaf kale ku hadlaan ma jireen magacyadaas ay sheegeen ayaa roobku noo daabuur markaa ninka beeraleydii loodeedii buu arkay oo bilaa saxaafada markaas yiri saddex gobonimo oonad garanayn geel kula maray siciib la hadlaya waa sax saddex gobonimo oonad garanayn geel kula maray geeska fidinka ee gujada badan geel kula maray geel qofku qaniinaya oo istaawaca laakiin suuq markuu meel yar ka celiyo sac kale u yar gujiyay sac suboodii soo waxba yeeli markaa yiri geeska fidinka ee gujada badan geel kula maray garoor googo'an oo la galab lulo geelo kulama leh ciirta iyo subagati kulama leh saanta gibisha ee guriyaha taal geelo kulama leh wax lagu seexdaa saanta lagu seexdo loodu ma lagu seexdaa geelo lagu seexan karo geela geel waxa la dhawa jareer timi dhogortiisu adagtay waa sax waa sababta uu guban waayay ee uu cadceed ugu adkaystaa waxa weeyaan dhogortiisu way taagantay adagtay haday uu dhiido ma seexato waa sax ima timaha dad qoyso way seexanayso laakiin loodu timahayga dhogorteedeedii waa seexanaysaa waa dhogor jilicsan marka saanteeda lagu fariisan jiray waa lagu seexanay markaa lagu seexan jiray aruusida marka wuxuu yiri saanta gibisha guriyaha taal geel kulama leh geel kula leh ma jira geela laguma seexan karo dog baa isagu adag yahay saantiisu waa sax marka wuxuu yiri saddexda goornimaba adaale oo gaar qofkii waad seexinaysaa cuntana waad siinaysaa marka loodu jiilaalka waxay ka baxdaa waxay dhigato geela waxba lama dhigo waa sax maydhanaan kuna wuxuu noqdo aduu markuu jinaw noqdo waa lagu saxraamaa caanaha geel oo hadduu imika toddobaad yaallo waxa la dhahaa waa jinaw marka hore uu dhanaanaadaa maydhanaan buu noqdaa karuur buu noqdaa ilaa wuxuu noqonayaa jinaw marka geela looda waa la lulayaa subageegiyo sixin la yidhaahdo ayaa la dhigaya waxaan caruusida lagu cunaa waa loodi waa sixinki waa sax laakiin intaas caanaha geela haday inta isku kala bedeleen inta oo darajo oo dhigmaya kama sareeyo intaas oo kale waa dhigmaya laakiin maxaan ku dhiganaa subagtay iyagoo subag oo dhowr sano yaalay baa dhigataan caanaha geelu soo dhowr sano ma gaari karaan imisu dhayaha ma caanaha marka soo liso looda imisu joogi karaan shaah lagu cadaysan karaan caanaha geelu caanaha loodu way ba'an way xumaadaan laakiin caanaha geelu way dhanaanaadan iyagu maxmaadaan baa hadii yalla waa amaanta ay leeyihiin nin baa wuxuu yiri afalaa yanduruna ila ibili kayfa khuliqat ay soo qaataan qolada geelu aayad quraas soo qaadanne sacbaa noqday saddex jis suuratul baqara waa saddex jis oo quraanka sacbay ka sheegaysaa ma saddex jis ba aayad quro lagu sheegay ibil baa waa weylihii waa nirgihii waa qaalmihii وهالي هو وناك غلوفتي وريمايغي وإرمانكي انتي بها هل آيات بلغو شاي جيلا لوغ مغا بالصورة لوغ ما اعتري ما دارتوي صورة مغعيغا لو بحي ديكي oo الإبل لا ما جرتا قران ما جرتا هل آيات ku jirta آياتdaas ila الإبل كيف خلقت oo ilaahay soo abuuray u fiirsada leeyahay waliba waa sax caanahan ka keenna ma sida u abuuray anu ilaa migan daawanaa sida loo abuurayna waa mucjiso waa sax oo mucjisaadka ilaahay ayuu ilaahay ku sheegay لكن صعب صدح جس نقضي هتي لوضة لون لها ملا صدق هم نقول له وين قيمة هي قد لوضة جيلة وحلا سكيب بحياة سيدا أغنها يردك تك جيل ليدة هادو مركي سوها الله يان كوش وابيان وحي بكحنا هاقدنا نهارتا إنا اللو يجيل إساقرقنا وحي كليهن مربع لقو بحياة
وحكوليهن إن يرد بالله بحيا حكى جواب سنة الله ما يرد بالله بحيا بس واحد الله بحيا مقبل بحيا hortaymiga yaradka lacag baa lagu bixiyaa geel maartay xamsu geel yarad lagu bixinayo ma jiraba way magtana kaash baa lagu bixiyo waan sarifnaa ku dhex sarifnaa santii soomta hasha hal lacag baa lagu bixiyaa way waliga loo gabdha malaka siista horta annagu ilaa waxa gabdhaha geel annagu xaga yagan loo baa la kala qaataa yaradka tay inta soo socota haye ayaa la bixinaya way ma fahanti haye imiga ninka loodali ha marka barwaaqada way qurux badan tahay way jilaalkana way fool xumaata sida dadku isku bedelaanti haye ninba wuxuu yiri sacba naagta la salsalawiyo sideeda u socay sacuu markuu gugana uu xaragooda oo ku cajib gelinaya waa sax jilaalka duu fool xumaadana deegugi buu qurux badnaa ku dhaafna waa telef laakiin geelu labadaba waa isku mid haye isku si weey waa isku si caanigu jilaalku siinay gugana uu siinayo haye marka laakiin loodu xilliga barwaaqada caana saa'ida hilib saa'ida iyo waxtar saa'ida ayaad keelisa talabaad dibiga sicii ma wali ka hadana waa sax dibigi ma nagay waa sax iyaga awrka waa raroodi Soomaaliya waa la raraaw waa lagu guura annaga hataa production nooy iyaga waa qaxtay awr lagu qaxay de wax qof qaxay amaan malay imaadaan meel ka guuriyo meel kale guuriyo baxsanayo abaar ka baxsanayo amaan mal laakiin production halkan igu haynaya aniga dibigu inaan qaxin dabadeed maxaan sameeyaa markaan sida bahalshan lagu qodo harqoodka qaybta dhulka gasho waxa la marashi waa bir waa sax markuu marashi dhulku taago ayuu xidhaa ninka reer Gibli wuxuu oranayaa bisinkii nin bilaabay oo ilaahayna baryaaya balaayo ma timaado abaari waan ka xijaabeenna markas abaaray bari ku guuriyeen nimanka geeleydu waxay ka guurayeen waa ku bilaabayba anagu waa ku xijaabteen ku xijaabin markaas iyagu geelo ma duceeyaan inta badan way habaaraan geelo bal u fiirso sabadu gala seexa mooyee salaad kuma baxo markuu in badan loo duceeyaa inta badan wuxuu oranayaa balaayo xarbi meel xinjiritaal oo ku xarbi ololay isagoo dagaal bu sheegay annagu waanagan waxaan ku bilownay bisinkii ilaahay dabeedna marka beerta sidaa u dhammaystiro dibiga waan duceynaa waxaan leenahaa carab naada yaqaana carab naada waxa weeye nacamti habaar waa sax yaqaana carab naada yaqaana iyo calool goona taqaana goona waxa weeye calool xumo calool goona taqaana iyo indha cawri yaqaana cawd caad baan kaaga hagow waa duco waa dibigoon duceey markuu meesha shaqadiisa dhammaystirtay markaa dabeedna maalinta baaqbaaqa waxa la yiraahdaa markaan siirkiisa ugu sameeyo waxa laga yaabaa in number badan soo baxo dabeedna midhii bixi waayaan marka uu dhuudhuubnaanaya dawadigoo 10 qof oo saxni qof ku filan loo dhigay ma dhuudhuubnaanaya intaas hadii la bil wada jooga waa sax marka geedaha qaar baa laga jaraa marka baaqbaaq baa la dhahaa markuu taa dhammaystiro ayaa dibigu isagoo niyad jabsan mar labaad ugu celiyay oo haystay mar labaad qodayo ayuu arkaa dibigi wuxuu ka oranayaa ninka reer Gibli wuxuu oranayaa wuxuu markuu beertu baxdaan balka ku gurayaa adna beer ku hayso oo shaqo wada shaqaysanana aanu caleenta ma cuno adoo caleenta cunaysa ana midhaha wada shaqaysanaysa adoon imiti markay beertu baxdaan yaan balka ku gurayaa adna beer ku hayso taniyada ku hay aade marka uu leeshiinaya marka qaarkood waxa imaadaa dibigu markuu beertu ku qodayo qaar waxa jira harqood kalula dabeedna faagii inta la jeexayay tooska ayuu leexleexiyaa oo qasaya marka meesha waa sax dabeedna wuxuu ku yiraahdaa maaniga harimeeyo uu ka dhigaraya waa sax maaniga harimeeyay maxaa qada cunay maaniga harimeeyo halkii kaaga dambeeyo hiraabtii dabadeed waa salaadii subaxii soo raray waa sax hiraabtii dabadeed hooyaday waxay harqoodka gilgilayso horna gaad jabinayso horna waa halka laga soo laabayo waa sax halka koorna markuu faagu dhamaado meesha laga soo celinayo horna la yiraahdo uu iska sii wadanaya marka horeey baa la yiraahdaa mugti soo leexay horeey baa waa sax uu iska soconaya waxa la qasay mugti markaas la dirraysna ku yiraahdaa harqoodka gilgilayso horna gaad jabinayso hawli ku marxmayse iga deysan taaqo war aanu kaama saarayo la dhameystirtay awshaad wado
markaa ka gayoon mayna sugaan tahay ka gayoomay ha haye saxaafadana waxaan leenahay loodana saxaafadeeda ha loo sii daayo si aanay calool xumo u qaaday gobolkan sida hormada kugu soo sheegnay abwaanku aad u mahadsan yahay xildhibaanka sidoo kale gobolkan Gabiley wuxuu caan ku yahay waa lo'da alashaan waa dhul beereed lo'dana caan buu ku yahay marka in suugaantii lo'da ee hodanka ahayd sidaan maanta aan u helo abwaanku nooga sheekeeyo runtii aad baa ugu faraxsanahay saddex meesi oo xoolaha la dhaqo oo Soomaalidu dhaqato mid kasta wuxuu leeyahay sharaf gooniya wuxuuna ku tiirsan yahay kaalin mug weyn laakiin se waxa weeye maadaama dad Soomaaliyeed leeyahay xoolo dhaqatadu inay is-challenge garayso xigmad baa laga faa'iideeyaa ma fahanteen sharaf karaab weyn mar kasta iyo meel kasta oo aad ka dukaansanayso wadanka Shiinaha wehelkaagu ha noqdo Dahabshiil Mastercard intii China aan joogay sidaasaan mar walba ugu adeeganayay oo wehelkayga uu ahaa Dahabshiil Mastercard Shishiye thank you very much meel kasta oo aad adduunka ka joogto ku adeego Dahabshiil Bank Mastercard